top 5 ka fanaan ee ugu caansan markaasi Soomaalida fanaaniinta heesta ee Soomaalida way isweydiinaysaa sidee lagu xuli karaa way adag tahay ha Google ayaa weydiiyay baaritaan dheer ayaa ku sameeyay meel kasta weydiiyay waxay ku dhahdeen way adag tahay sida lagu helo laakiin se waxaan ku xuli karnaa shanta ugu waji garashada ama uguna caansan Soomaalida fanaaniinta heesta marka shan bal isoo siiyay shantaasan maanta idin la wadaagaya haddii aad ka aragto duwantahay fadlan dhanka commentiga inoogu soo qor number 5 wuxuu soo galiyay fanaanka la hada Saalax Sanaag anigu hadii la weydiin la Saalax Sanaag boqol xitaa ma soo galin sababta ma dhageystaba ilaahay amarkii laakiin wuxuu waa kaalinta shanaad ee ku jira fanaanka loogu garashada badan yahay oo Soomaalida inta ugu badan taqaano heesihiisana la wada yaqaano ana dadka heesii hore dhageystanahay xidigaha igu kaalay laakiin bal aan eegno anigu bias baa ku hay badakooda waa ka soo horjeeda laakiin waa sida baaritaan ku sheegay marka waxba kama bedeli kara sida ay tahay baad la wadaagaya number 4 ka wuxuu waa fanaanada markaas la yiraahdo Shaadiya Sharaf ayaa fanaanada afraad ee ugu caansan fanaaninta Soomaalida ah sidaad u aragtaa Shaadiya Sharaf Saalax Sanaag iyo Shaadiya Sharaf numberka ma kala bedeli lahayd I don't know wala laga yaabaa inaad ugu raacid numberada saddexaad labaad iyo koowaad ee number 1 ka fanaanka ugu caansan Soomaalida okay number 3 haddaanu eegno fanaanka la yiraahdo Dayax Dal Nuurshe ayaa kaalinta saddexaad u soo galiyay waa bartaanka guud ahaan internet ko dhan marka la isku qaso fanaanka ugu caansan ee kaalinta saddexaad ku jira laba fanaan oo kaliya ka caansan ay ku leeyihiin fanaanka Dayax Dal Nuurshe marka guud ahaan fanaaniinta soo qaado inaad reeyalo baash maxamed baa laga soo sameeyay I don't know ma garanayo kafta bay iga tahay wali saddexda fanaaniin badan oo kale aan koowaad iyo labaad iyo saddexaad iyo afraad iyo ilaa 10 gaarsiin lahaa jira si kastay ahaato labada ugu dambeeya aanu kaalinta labaad ku jira fanaanka labaad ee ugu caansan fanaaniinta Soomaalida wuxuu yiri waa Sharma Boy buu waa fanaanka ugu caansan number 1 ma waa number 2 fanaanka labaad ee ugu caansan Soomaalida kaalinta koowaad fanaankii ku jira intaan u gelin fanaanka kaalinta koowaad ku jira marka laba shay baad ku codsanaya maanta hal shay oo kaliya tamaha shayga koowaad waxa weeye bal sidee u aragtaa afartan number iyo ka kaalinta koowaad soo gali doona kaybuu ku leeyahay kaalinta koowaad inuu ka soo galaya taklabaadna waxaad ku codsanayaan inaad flow halka soo tiraadaan idinku mahadsan hadii aad wadaan gacantu idin shaqeyn karayso sidoo kale inaad like raysaan favorite kana taabataan waxa isku daynaa waxyaabaha fara badan oo faa'iido leh top 5 fara badan inaad soo gudbaada top 5 hore doonaysidna xaggan hoose waxa yaala playlist ay top 5 ku qoran yihiin falaar kor u jeeda taabo kadibna top 5 fara badan bad keenaysa kaalinta ugu dambaysa fanaanka kaalinta ugu dambe koowaad ku jira fanaanka ugu caansan Soomaalida waa fanaanka magaciisa markaas la yiraahdo Keenan sida waragta commentiga noogu soo qor wadnaasantii